معناها nabadgelyadooda ay okay tahay oo wax dhibaato ah jirin muhiimadu waa sidaas marka Soomaaliya saraac doonta walaashii soo ka xayraysa walaashii ama raacda ama saraac laakiin horta qofka oo diyaar raaci karaan sidana u sheekaysanayna sidana u sheekaysanayna oo kale uu la hadlayaa in adeertiisa kan uu la hadlayaa uu leeyahay inuu taleefanka ma ii soo celisaana taleefankayga ma ii soo celisaan inta ku haya baabant hadda waan seexday xalay toole hadda taleefankayga ma ii soo celisaan maanta hay hadii loo soo celiyo hadda ma qof saa kula sheekaysanaya marka ayaad u malaynaysan inuu dhibaato kala qabo nasiib u baahan yahay waa in la nasiyo qofka si loo nasiyana qof TikTok haysta ma nasanayo ariya oranaya qof TikTok haysta nasanaya maskaxdiisu ma nasanaysa qof TikTok haysta muhiimada boo waa inuu caafimaad qabo noo fiican yahay oo noo nabad qabo anaga waxba naga halaysna intaas anaga badan ana hadda ka imid baa idin dhahay ana hadda idin sheegay qof inuu caafimaad qabo haddadan ka imaaday cunay cabay iska seexday kadibna nabad ku seexday salaam saaxiibkiisu dhawina taana waa ogahay wax dhan oo anu waan la socdaa ma fahanti marka boowe adoo fiican yahay ma sha Allah ilaahay waxa way u siyaadiyo en meeshiisana ilaahay ku xiriyo bartaan joogo qolka waan duubay en lambarka qolka degay waa soo duubay aniga taagan oo taagan gaariyayga yaala meesha wax oo dhan Snapchat-iga saaran yihiin soo arka okay ma sha Allah boo ma sha Allah khayr ilaahay ku siiyo ka waran warqab boowe haddana waa ku sii salaama intaasna farxad ay tahay aad marka waa mahadsantahay walaal wax marka ma ahan hadda waxa arkay kuwa wax ku soo qoran Snapchat-ka ha shalay buu sii sheegay inuu beritola telefoonka laga qaadi doono wax qaldan yihiin haduna beritola video soo duubin waxa soo dhan yes waa loo sheegay waxa lagu yiri nasiima saadu heshid telefoonka waa laga qaadaya hadii aadan joojinaynin xilliga nasiimaha aadan nasanaynin seexa xilliga lagu dhaha aadan seexanaynin waxaas oo dhan ayaa dhici doona la waa loo sheegay wadanka Norway la dhahaa gabadha ayaan jaamaca waree Norway sharciga wadanka way ogtahay wax kasta wadanka lagu sameeyo ama lagu sameeyo ama adiga in lagu sameeyo la rabo sharcigiisa lagu sheegay sharcigaas nafar ayaa lagu dhig qodobka lambarka noocaas noo sheegay lagu dhig baaragraafkaas noo sheegay lagu dhig waxaas ayaan ku sameynaynaa sharcigaana ku ogol marka wayna sameeysid da sameey weeydo oo diidid oo ogolaan weydid haddaad waxa diidid waxaasaanu sameynaynaa lagu dhig marka mid ogaada waan salaamaya ma ku socdaa dhimash salaam soo dhaw haniye waa ku salaamaya naciimana igu salaam horta aniga ahaan maanta telefonkiisa ma shaqeynaynin waa inuu ku jaamno profile ku saaray qof dadka Snapchat-ka weydiinayaan telefonkiisa horta maanta ma shaqeynaynin wayna wacnay waa off ma fahant telefonkiisa ma shaqeynayo laakiin ekraan hadaad wacdada lambarkiisa haysid lambarkiisa deebisan hana ekraan ma hayno qofka kaliya qolku ku jiro kursi inta dhigato la fadhiisan la sheekaysanaysa waa iyada uu ogol yahay waxa ka baxsan shaqaalaha caafimaadka meesha jooga dhakhtar yahay haduu neers yahay qolka cidii ka soo hagaajin lahayd haduu yahay dhaqmaha iyo waxa uu xil saarnayd waxa kale oo dhan saxinaade rabta waxaan rabaa inaan laba kelmad ah Omar waa la hadlay waana la hadalnay anagoo group oo iglan soo ku jirto horta Omar qof xanuunsan ma ahan ma fahanti qof caadi ah weeyaan oo yaani waxba qabil laakiin shock qaada qofka markuu shock qaadana waa dareemi kartaa inaad shock qofka mid gal shock waxbuu arkay shock buu haystaa marka wadamada waa naqaana hadda qurbaha marka dhoofiyo wadan kale aad tagtid waxa waaye wadankaaga waa lagu celinaya samoogid oo idii soo laabanaya laakiin waa idin hadli kartaa haye waa runta wadankaaga waa in lagu celiyaa wiilkan horta ma xanuunsano shock buu qaaday quraan buu u baahan yahay in quraan la saaro familka dadka quraan saareen meeshan ay ka saareen gaalada way duraysaa ma fahamta qofkan hadda wax waalan ay ka dhigaysaa daawadaada in lagu duro wad bararaysaa marka sharciga Norway u yaalo ayagu Scandinavia-hu qofka haduu wadankan uu saddegneen way ay ugu diidaan waxaan arkay xataa qof xataa inta silsilad lagu xiro diyaar la saara aragna wadankiisa loo diray way loogu dhagan yahay wadankiisa loogu diri laayay taas way su'aasha isweydiin taas go'aankeeda waa in la gaaraa marka hore walaashiisa ama tiri waa raacaya ma raacad xataa hadii laga shakisan go'aankeeda marka hore waa in la gaaro waa in la isla gaarto dawladdiisa iyo dawladdan uu hayo hadda uu la joogay waa in taa isla gartaan arinta waa in isla soo qaataan isla gartaan laga wada hadlo kadibna wuxuu u baahan yahay loo sameeyo noqonaysa okay mid labaad inaad qofka bilaadanka waa qof bilaadan naf ku jirto aad waa dareemi kartaa qof jidka markaa marays waa aragtay gaal iyo islaamba telefoon lagu mashquulsan
حتى ساعة ير ويلك ملودي انت لا فلسي لا قفكوا بلا ادم وكل في سيا تيك توك حتى هلقا قاد هذيك هلقا قاد maya saacado waxa laga yaabaa in la siiyo saacado yar in la siiyo oo lagu yiraahdo ama fiiriyo duub ama wax saacada kadibna laga qaado laakiin not maanta ma kay dog